الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. اللهم يا رب العالمين ربي زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا وفقهنا عن أمر ديننا فقها واسعا يا رب العالمين. اللهم آمين. ducadaasi hordhaca ah waxaan ku darayaa duco ah maadaama caalamka oo dhan maanta uu haysto khatar cudurka coronaviruska ama coronaviruska khatar uu wato, cudurka dilaaga ah oo kubanaan kun qof ay ku dhinteen, ayaan ka ducaysanaynaa. waxaan leenahay allahuma inaa nacuudu bika, ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, allahuma inaa nacuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa sayi'i alasqaam, oo micnaheeda tahay ilaahu subxaanahu wa tacaala waxaan kaa magan galnay, adaan ku hoosgalaynaa, adaan ilaalo iyo xifdis ku weydiisanaynaa cudurrada kala ah baraska ee maqaarka gala, cudurka waalida ee maskaxda gala, iyo cudurka judaamka oo ah nabaro jirkao dhan wada qariya macal wejiga faafa, iyo cudur kastaoo khatar ah sida coronavirus. ilaahu adaan ka magan galnay. inta xanuunkan uu taabtay ilaahow shifaa caajil ah oo deg deg ah, caafimaad ah ilaahu sii. inta u dhimatay shuhadaa'u alaakhira ilaahu ka yaal. inta weli uusan soo gaarin ilaahu naga leexi, ilaahu naga jooji yaa rab alcaalamiin. waxaan leenahan ku ducoysanaynaa allahuma inaa nacuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan hoosgalaynaa wax walba oo ilaahay abuuray oo shar wata ilaahan ka hoosgalaynaa. iyo ducadii ahayd bismi illaahi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi اsamaa wa huwa asamiicu alcaliim. bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi, ilaahay magaciisa aan howlgalaynaa oo allah ah subxaanahu wa tacaala. wax walba wax dhibayo ha muuqdo ama yuusan muuqan, ee dhulka ka jira ama kor ka jira ama meel walba oo ilaahay uu abuuray jooga, ilaahan ka magan galnay. intaas kadib suuratu yuusuf aayaddii 3 ayaan ku istaagnay. tafsiirka suuraddan wadnay, duruusta laga qaadanayo, waxaan fiqhan maxaa laga qaadanayo axkaam ah, cibar iyo xikam ku qarsoon suuraddan, xikmadaha ku qarsoon iyo asraarta inaan faagfaagno. hadafka tafsiirkan waa sidaas, waayo waxaan aaminsanahay dad badan oo idin ka mid ah tafsiirka qur-aanka inaad soo akhrisateen oo la wada yaqaano in badan oo idin ka mid ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaan lasoo wada akhrisan asraarta iyo axkaamta iyo wixii cibar iyo duruus oo laga qaadan karo. marka waxaan soo gaarna aayadda 4. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashaytaan arajiim إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. wiilkii yaraa ee yuusuf ahaa
ma qaangaarin, laakiin da'diisa culummada qaar waxay dhaheen 7, qaar waxay dhaheen 12, waa la isku khilaafay tafaasiirta, laakiin weli ma qaangaarin. wiilkii yaraa wuxuu u yimid aabbihiisa. marka tafsiirka wuxuu leeyahay waxaad xustaa nabi maxamed calayhi salaam id waqti qaala yuusuf ayaa wuxuu leeyahay, wuxuu la hadlayaa liabihi aabbihiisa, yaa abati aabbow. kelmadda yaa abati ludfa ku jirto, kalgacayl ayaa ku jirto. wiil yaro aabbis aabba macaanow, saas waa micnaheeda. af soomaali haddii lasii jilciyo wuxuu leeyahay innii ra'aytu 11 kawkaba. innii aniga ra'aytu waxaan arkay 11 11 oo maxay ah, kawkaba oo xidiga ah. saasuu u sufeeyey xidiga inay yihiin. ilmo waaye, xidigaha wuu garanaya. washamsa qoraxdina waan arkay, oo xidigaha keliya ma ahayn, qoraxa la socotay. marka waa cajiib, sababtoo ah xidigaha habeenkia la arkaa oo maalinta xidiga ma muuqdaan sida caadada ah. waxaa kaloo la socda uu yidhi walqamara, dayaxna waa la socday. marka wixii aan ku aragna samada oo caadi ahaan aan habeen iyo maalin aan aragno oo wada socdaa la tusiyey. oo qaabkee loo tusiyey marka? ra'aytuhum lii saajidiin. ra'aytuhum waxaan arkay, ra'aytu waa arkay hum iyagii oo qaabkee ah, lii ay aniga, saajidiin ay sujuudsan yihiin, aniga ii sujuudsan yihiin. culummada oo luqada waxay leeyihiin haddii la fiiriyo waxyaalaha uu arkay waa waxyaalo aan caqli lahayn. kawaakibta xidigaha caqli ma lahan, qoraxda caqli ma lahan, awaamir ilaahay ku shaqeeyaan. jamaadaadkay ka mid yihiin. jamaadaadkana markii damaa'ir la isticmaalayo, damiir ama magacuyaal markii la isticmaalayo oo iyaga la raba in lagu sifeeyo oo lagu tilmaamo, magacuyaal oo waxaa la isticmaalaa aan caqil ahayn. marka halkan marka ra'aytuhum, humtaasi waxay tusinaysaa in waxa uu arkay isagaana dhahaya. fiiri nebi yuusuf calayhi salaam, wiil caqli badan inuu ahaa, wiil aan caadi ahayn inuu ahaa. waxaad ku fahmaysaa wuxuu dhahay waxaan arkay. marka damiir ma siinin sida qur-aanku ka cabirayo oo waxaan caqli lahayn. marka ra'aytuha inuu dhahay ahayd hadduu jamcinayo waxaan caqliga lahayn. marka waxay ahayd wuxuu u jamciyey jamci wax caqli leh oo kale, oo uu dhahayo ra'aytuhum waan arkay iyaga, waxaan arkay. marka iyagaasi, marka culummada tafsiirka waa meesha nebi yacquub uu ka qaadanayo. wuxuu arkay xidigo iyo qorax iyo bil keliya ma ahan. tiradii oo 11 xidigood wuxuu u soo qaatay tirada walaalaha, 11 wiil oo la dhashay. marka wiil isku aabbi yihiin waa binyaamiin, iyo nebi yuusuf waa isku aabbi isku hooyo. 10 kale marka binyaamiin laga reebo isku aabbay yihiin, isku hooyo maaha. nebi yuusuf hadda uu la hadlayo aabbihiisa, hooyadiisa way dhimatay. waxaa korsanaysay eedadiisa oo hooyo u ahayd 10kaasi kale. marka eedo koris xaaladeedu hadda uu ku jiray. marka waxaa dhacday markuu u yimid aabbihiis wuxuu dhahay aabba macaanow, ana riyaan arkay. riyada aan arkay waxaan arkay 11 xidigood iyo qorax. marka qoraxda iyo dayaxa waxaa laga cabiray hooyadii iyo aabbihii. waxaan arkay iyagoo iyo wada sujuudayaan sujuud. markaasi nebi yacquub markuu la hadlay wiilkiisi wuxuu yidhi, taas waa aayadda 4. aayadda 5 wuxuu yidhi, qaala yacquub wuxuu yidhi, marka nebi yuusuf waxaa dhalay yacquub, waa nebi. yacquubna waxaa dhalay isxaaq, waa nebi. isxaaqna waxaa dhalay ibraahim, waa nebi.
marka mar waxaa jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi man akramu nnaas dadka ugu sharaf badan nebigu wuxuu yidhi anaga badanaa su-aashaas hadda hadda la weydiiyo yaa ashraaf ah soomaalida haddii la weydiiyo ama yaa laandheera ah ama qabiiluu kuu sheegaa ama qabiilkiisa ahaado ama ku kale ha ahaado uu ismoodsiiyey hadduu isaga isyasaayo marka diinta islaamka laandheero waxay u taqaanaa xadiiskanaa sheegayo waa la weydiiyey waxaa layidhi yaa ugu sharaf badan dadka ilan sharafaa meel lagu gaaraayo rasuulka xasan wuxuu yidhi akramu nnaasi atqaahum kan uga cabsi ilaah badan macnaheed waxaa kan ilaah u dhow oo cibaado badan oo ikhlaas badan daacadnimo badan amiin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala si sax u caabudo oo taqwa badan kaas ayaa u sharaf badan iyaga marka saas ulama jeedin waxay dhaheen taas ulama jeedna macnaheed waxaa waaye taas waa naqaanaa laakiin anaga waxaan ula jeednay marka abtirsiinyo la sameynayo oo caadiga ah yaa la dhihi karaa kaasaa ugu kariimsan markaasaa rasuulku wuxuu lehay saas ula jeedaan akramu nnaasi yuusuf uu dhahay maxaa dhacay abtirsiinyo diimeeduu leeyahay halkan culummo qaarkood waxay dhaheen markii duruus laga qaadanaya ilan waxaan rabnaa inaan faagfaagno macaanida qur'aanka culummadan waxay yidhahdeen haddaad rabto macaanida qur'aanka inaad fahamto hal su-aal isweydiinaysaa su-aasha jawaabteeda helaysaa marka su-aashaas waxa waaye qur-aanka maxaa waaye waa kalaamullah kalaamullah maxaa macnaheeda ilaahay hadalkiisa yaa hadlaayo allah yuu la hadlaayaa ciduu abuuray oo dhan makhluuqaadka oo weli kuwa caqliga leh oo jinniga iyo insiga ah markuu muxuu ula hadlayaa waxbuu ka rabaa muxuu ka rabaa waxa ay samaynayaan oo ilaahay uu ku waajibiyey iyo wax ilaahay uu diidan yahay inay kala ogaadaan qur-aanka macnihiisa intaas waa inaad ogaato maxaa lagaa rabaa inaad samayso oo ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay uu ku farxayaa oo ilaahay aad ugu dhowaan kartid in muxuu ilaahay diidan yahay uu necban yahay uusan rabin inaad samayso ama aad ku hadasho ama aad qayb ka noqoto marka qur-aanka waxaa waa macnaheeda haddaan si kaloo fudud aan u dhigo ilaahay muxuu naga rabaa annaga hadda waxaan baranaynaa ilaahay muxuu naga rabaa walaalayaalo ogaada wax la barto waxaa ugu khayr badan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala jaamacadda harvard university waxaa la yihahdaa the best university maraykanka ku taallaa bostonay ku taallaa waa jaamacadda waxaa la yidhaahdaa adduunka ugu saraysa waa dadka say u haystaan kule ana saas uma haysto ana waxaan u haystaa jaamacad islaami ah oo culuumta islaamiga sida saxda u sharaxda inay tahay jaamacadda adduunka ugu fiican marka jaamacaddii doontaa hadda taas waayo qofka waxaa wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun harvard university ma ku baraysaa ilaahay wuxuu kaa rabo oo haddaad samayso janno aad ku galayso su-aashaas waa marka ilma adduun haa waa laga yaabaa inay the best noqoto laakiin adiga maxaa lagu keenay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ada waxaa lagu keenay jinni iyo insa waxaa loo keenay ilahay inay caabudaan ilaahay see u caabudaysaana barashay u baahanta barashadaasna yaa wax baraayo ilaaha kuu sheega as laftiisa ku baraayo wuxuu ku leeyahay faclam annahu laa ilaha illa waa qur'aanka waay faclam annahu laa ilaha illa allah baro ilaahay kelinimadiisa ilaahay kelinimadiisana waa qur'aanka o dhan wuxuu ka hadlaayo waa qur'aanka o dhan wuxuu ka hadlaayo marka adiga waxaa lagaa rabaa ilaahay inaad dhegaysato muxuu kaa rabaa ilaahay marka wuxuu ilaahay naga rabaa halkaan ka baranaynaa nebiga marka aayaddan xadiiskan wuxuu ku sharxayaa nebi yuusuf kumuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi waa idin fahmay hadda akramu nnaas dadku waxaa ugu karaamo badan wuu sharxayaa marka akramu nnaas dadku waxaa ugu karaamo badan yuusuf calayhi salaam uu dhahay sababtuu sheegay marka sababta wuxuu dhahay innahu nabiy waa nebi isaga ibnu nabiy nebi ayaa dhalay waa yacquub haddana ibnu nabiy hadda yacquubna yaa dhalay nebi kalaa dhalay waa isxaaq haddana isxaaqna yaa dhalay ibnu nabiy waa isagana waa ibraahim calayhi salaam marka dhal ambiyo waaye ama lineage haddaa dhahdo ama abtirsiyo nebiyuu wataa halkan marka culummada waxay yidhaahdaan
dadka abtirsiimaha diimeed wata waa dad khayr badan. halkaasa laga soo qaadanaya. haddii aabbahaa sheekh uu yahay oo sheekh kale uu sii dhalay oo sheekh kale caalim oo uu sii dhalay, dhammaan marka waddadaasi ama sheekhnimadaasi aad ku abtirsiinaysa abtirsiinayso waxay noqonaysaa sharaf oo gooni ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sharfayo tiradaasi oo shuyuukhda ah ama ahludiinka ah dhiiggaasi iswada qabsaday. marka waa barakaa meesha ku jirto. idan marka halkan waxaa ka fahmaysaa nebi sharaf badan inuu ahaa. waaya nebigaasi calayhi salaatu wasalaam markaasi nebiga calayhi salatu wasalaam xitaa su-aal kale ayuu ka jawaabay. wuxuu dhahay ma waxaad i weydiinaysaan uu dhahay macaadin alcarab, carabta raggooda sifaysan oo qiimaha leh haddaa rabtaan inay weydiisaan. wuxuu yidhi xadiis oo standard noqon kara oo miisaan noqon kara uu isticmaalay. wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fakhiyaarukum fi ljaahiliya khiyaarukum fi lislaami idaa faqahu. dadka markii jaahiliyada la ahaa oo diin weli aan imaan dhoorsanaa, dad waxaa jira oo dhoorsanaa, xaaraan ma cuni jirin, dad ma dhibi jirin, waa la helayaa hadda xitaa adduunka gaalada markaa dhex timaada halkan waxaa arkaysaa dad dhoorsan, qoysas qaarkooda oo caddaan iyo madow wax doona ha ahaada oo dhoorsan, xumaan ma sameeyaan, waxaan fasaadka khamro ma cabaan. waa aragna dad aan khamro cabin, sigaar cabin oo dhoorsoon, waana gaalo waay. kuwaas hadday islaamaan u dhahay rasuulka marka oo muslimiin ay noqdaan, kuwaasaa dadka ugu khayr badan. lama dhihin kuwa markay jaahiliya yihiin, sababta islaamka dadka khayriyada islaamka waay. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhuuna cani lmunkar. halkan waxaa ka fahmaysaa marka khayriyada waxay ku jirtaa islaamka. hadday islaamka qaataan kuwaasaa ugu khayr badnaanaya. okay, halkan marka nebi yacquub wuxuu la hadlay wiilkiisa. wuxuu dhahay qaala wuxuu yidhi yacquub aa hadlaaya yaa bunaya wiilkaygu laa taqsus, ha uu sheekaynin ru'yaaka riyada aad aragtay calaa ikhwatika walaalaha. oo maxaa dhacay? uu ka jawaabay jawaabta way dhacsan tahay. fayakiiduu laka kayda, dhagar iyo hagardaamay kuu samaynayaan. intaasi kuma joojin. wuxuu yidhi ina shayطaana lilinsaani caduwun mubiin. ina shaydaan lilinsaani insaanku wuxuu ku yahay caduwun cadow mubiin ay cadaawtinimadiisa ay caddahay. halkaa marka axkaam badanaa ka buuxda. marka axkaamtiian faagfaagayna marka ilaahay muxuu naga rabaa saan ugu jawaabo. kow, labada aayadooda isku dhex daro. cilaaqada ilmaha iyo waalidiinta in cilaaqo xooggan ay noqoto oo ilmaha markay arkaan arrin kasta oo ka yaabisa inay waalidiintooda ula soo cararaan, ay ku qarsadaan, oo aysan ku qarsan asxaabtooda, oo aysan ku qarsan dad mustaqbalkooda aan dan ka lahayn. halka marka waxaa laga fahmayaa in waalidiinta ay ka shaqeeyaan xoojinta cilaaqada ilmaha iyo iyaga. markii la joogo qurbaha, ilmaha waa lagula leeyahay. qurbaha waxaan u jeedaa waddamada hadda aan soo aadnay ee gaalada ah. markii la joogo ilmaha 5 ah kula leh, 5taas adigaa ka mid tahay. marka 4 ah kula leh ilmaha. marka dagaalan ku jirnaa halkan markii la joogo. 4taas marka waxay kula qaabeynayaan cunugaaga suu u fikirayo, qalbigiisa, maskaxdiisa ula jeedaa. cunugaaga suu u dhaqmaayo, cunugaaga suu uu u samaysmayo, 4taasaa kula qaabeynayo. marka qofka inkastoo haddaba Soomaaliya 4taas laga wada helayo iyo waddamada muslimiinta, laakiin halkan way burburan yihiin, way cayiran yihiin, way xoog badan yihiin. 4taas waa maxay marka? 4taas waxa waaye kow, ilmaha asxaabtooda, ilmaha saaxiibka marka lidaalika nin oo xakiima wuxuu yidhi qul lii sadiiquk macnaha ama akhbirnii man huwa sadiiquk, ii sheeg saaxiibka waa kuma.
aqulu laka man anta waxaan kuu sheegaya qofkaa tahay marka qofka waxaa saameyn ku leh saaxiibkiisa waa koow saaxiibada marka ilmaha public school ay dhigtaan waa saaxiibo muslimiin aan ahayn oo akhlaaqiyaadkooda islaam aan ahayn oo movie iyo waxyaalo quran ah fiirsada oo cilaaqaad kala leh oo guryahooda ah broken houses guryo maaragtay burburay badan aan ka hadlaya inta badan marka saaxiibka raadu ku yeelana lidalika rasuulku wuxuu alayhi salatu wasalaam almar'u ala diini khaliili falyandur ahadukum man yukhalil qofka wuxuu ahaanayaa saaxiibkiisa dhaqanku u leeyahay waa nabiga alayhi salaam marka saaxiibada raadi ku leeyahay laba waxa familka u dambaysiinaya laba ilmo waxa raad ku leh streetka ama xaafadda dhahan dadka qaarkood xaafadda uu degan yahay ilmahaas hadday tahay xaafad qariban islaam waxaa jiro district waxaa jiro waxa la yidhahdo islaam area luqadda englishka waa markaan islaam dhahay area oo wasaq ah waay akhlaaq ahaan waxa meesha joogo waxa u badan marka waa areada laga cararo waay lidalika qofka muslimka ah wuxuu ku dadaalayaa xaafadda inuu doorto haddana saaxiibka inuu doorto saddex electronica ilmaha gacantay ku haystaan waa telefoonka waa gameska ciyaaraan kaasna wuu shirib garaynayaa ilmaha wuu qaabaynayaa saddex waxaa ilmaha raad ku yeelanayo iskuulka ilmaha uu dhigto oo wax uu ku barto iskuulkaasi manhajkiisa barnaamijkiisa suu u qabaysan yahay indoctrination wuxuu ku sameynayaa caqliga ilmaha uu samaynayaa uu dhisayaa hadda iskuullada maraykanka kale waxay aaminsan yihiin waxa la yidhaahdo evolution bini aadanka inuu daanyeer ka yimid uu isbadbedelayo markuu muddo dheer lasoo joogaba wax kale uu noqonayo marka waxaas ilmaha laga dhaadhiciya anagana ma aaminsan iyo waxyaalo fara badan xagga akhlaaqiyaadka iyo diin iyo akhlaaq kama jirto waa secular system schools afartaas marka waxaan ku darayaa familka ama qoyskana raad ayaa wuxuu ku yeelanayaa samaysanka ilmaha qoyska marka labadii waalid waay marka labada waalid aa ugu horeeya iyo walaalihii intaasaa qoys la isku yidhaahdaa marka ilmaha labadooda waalid iyo walaalaha hadday yihiin kuwa hufan akhlaaq fiican alla ka cabsi ku jirto oo guri aan khamre lagu cabayn guri aan qaad lagu cunaynin guri shanta waqti lagu tukanayo guri maamadii gabdhaha ay asturan yihiin markay dibadda aadayaan guri qur'aanka lagu akhrinayo guri lagu subcinayo guri dikriga lagu akhrinayo ilaahay lagu xusaayo waayo rasuulku wuxuu yidhi guriga aan ilaahay lagu xusin baytun kharib waa guri burbursan oo foolxun oo ku tilmaama rasuulka sallallahu guri haddaa aragto dhulka yaalla oo duunsan isagoo dhan albaadihiisa jajaban dirshadaha jajaban haddaa aragto muuqaalkiisa dunduunsan haddaa aragto rasuulka saasuu ku tilmaamay guriga oo aan ilaahay lagu xuseynin oo ilaahay aan la sheegin magaciisa oo rasuulka aan lagu xuseynin saas ugu tilmaamay marka guriga waa muhim waana asaaska dhismaha ilmaha shantaas ilmaha dhisaysa marka guriga labadii waalid marka aabihii wuu nool yahay hooyadiisa way dhimatay eedadiisaa nool marka eedada marka waxaad fahmaysaa aabbaha inuu cilaaqo qaas ula leeyahay yuusuf marka aabbihuu sheekadu ku qarsaday wuxuu dhahay aabbow ana riyaan arkay waa riyayaab badan aabbo waxaan arkay 11 xidigood dhulka usoo degtay oo saas u yar dhulkay wada yimaadeen xidigihii haddana waxaa dhulka usoo degtay waa qoraxday waxaa yaab badan way dhammaystirnaayeen oo waxaa la socota dayaxe hal mar ay wada sujuudeen aabihii wuu akhriyay riyadii yacquub riyaduu fasiri jiray wuxuu dhahay riyadaada cidna ha u sheegay riyada marka waa laba nooc ah markaa riya arkaysid ama riyo wanaagsan oo haddii wax badan oo qurux badan aad ku arkaysaa riyadaasi lidaalika culummada tafaasiirta oo riyada fasiraan waxay yidhaahdaan laba arrin ka hadlaan yaa loo sheegaa riyada iyo nooca riyada kow haddaan riyo wanaagsan aragto riyada nooca riyada waxa waa ama riyo xun aad arkaysa ama riyo wanaagsan riyo wanaagsan haddaa aragto waa bishaarooyin ka soo haray annubuwa nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ambiyada markay baxeen
ama nebi maxamed ugu dambeeyey markuu dhintay wixii ka dambeeyo nebi kale ma imaanayo, laakiin waxaa haray bishaarooyin oo riyooyinka qofka mu'minka uu arkay. lidaalika qofka mu'minka waxaa loola jeedaa qof ilaahay ku xiran haddaad tahay oo riyo fiican aad aragto, riyadaasi waa sax, way dhacaysaa, waad arki doontaa. lidaalika ayaa waxay culummada ay dhaheen qofka mu'minka riyo sax ah hadduu arko oo fiican aan ula jeeda, hadduu arko riyadaas fiican ilaahay idinkiisa way dhacaysaa. kasoo qaad wuxuu arkay isagoo jannada uu ku jiro, wuxuu arkay kasoo qaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu arkayaa, jannada wuu galayaa. marka riyada mu'minka waa sidaas, yaa loo sheega waa u imaan doonaa. qofka mu'minka hadduu arko riyo xun isagoo mu'min ah, ilaahay ka cabsanayo, soomayo, salaadayo, qur'aan akhrinayo, dikri akhrinayo, haddana riyo fool xun hadduu arko oo cabsi badan, riyadaasi waa min ashaytaan, ilaahay xaggiisa ma aha, waxba kama jirto, ma dhibayso. keliya waxaa laga rabaa markuu soo baraarugo inuu isbedelo, dhanka kale uu u jeesto, gacanta dhanka bidixda uu tufo oo cantuuf uu ku tufo isagoo shaydaanka uu la jeedo, oo acuudu billahi min ashaytaan arajiimna uu dhaho. intaasaa laga rabaa oo keliya. waaya qofka xun ka waran marka. afar, qofka xun laba nooc waay oo riyo u arkaa midkood, ama riyo wanaagsan ama riyo xun. lidaalika culummada riyooyinka waxay yidhaahdeen qofka xun hadduu arko, qofka xun waxaa la jeeda qof aan salaad tukan, qof aan alla ka cabsanaynin, qof aan soomaynin, qof aan qur'aan akhrinaynin, qof aan akhlaaq wanaagsaneyn, qof xaaraam iyo xalaal u kala socnayn, hadduu riyo qurux badan uu arko, kasoo qaad wuxuu arkay isagoo janno ku jiro, dhar qurux badan labisan, nuurayo, carfayo, waxay dhaheen culummada waa fa min ashaytaan, waa shaydaan. sababtoo ah ma istaahilo wuxuu asiga yahay, marka wuxuu arkay waa shaydaan. intaas kaliya mee shaydaanka uu u seeta dheereynayaa qofkaas, wuxuu leeyahay waxa aad ku jirto waad fiican tahaye janaad u socotahay, waxba hawlweyn, ilaah ku dambi dhaafaya, waa lu gooyo waa. idan riyadaasi waa shaytaan. haddii laakiin qofkaas oo xun oo salaad aan tukanayn, aan soomaynin, oo allaan ka cabsanaynin, oo akhlaaq daran, hadduu arko riyo fool xun, cadaab asoo dhulka lagu jiidayo oo naarta loo sii wado hadduu arko, riyadaasi waa riyo sax ah, waa riyo qofka baraarujinayso. waxay ku baraarujinaysaa inuu ilaahay u laabto, inuu ilaahay u toobad keeno, inuu nolosha wax ka bedelo. waa riyo sax ah, waa taas. intaas markaan kaga gudbo riyooyinka nebi oka, markaa su-aasha labaad oo ku xigto waxaa waaye oo darsiga laga faa'iidaysanayo, qur-aanka laga faa'iidaysanayo, suuratiisu laga faa'iidaysanayo, yaa loo sheegayaa riyada. marka hadday riyo xun tahay cidna uma sheegaysa, cidda u sheegaysa ma laha, meeshaad ku xiraysaa, xitaa tafaasiirteeda ma raadinaysa. haddaa fiican tahay waa sababta qof mu'min haddaad tahay, riyadaasi fa min shaytaan waaye, waxba inaad kala wesha maba aha, adig kuma khusayso iyadoo kale, maxaa u weydiinaysaa tafsiirkeeda. maybe haddaad tahay qof xun, markaasi tafsiir waa weydiin kartaa, sababta maadaama qof xun aad tahay waad dhihi kartaa alla xalay waxaan arkay anoo alkoholista ah, anoo oo salaad aan tukan, anoo qur'aan akrin, anoo weyse qaadan, anoo wanaag oo dhan shaqa kuleen, xal waxaan arkay anoo jannada ku dhex jiro oo la ii adeegayo oo nuurayo. haddii markaasi oo aad yaabto, idan markaas culummada weydiin kartaa. culummadana waxay ku weydiinayaan maxaa samaysaa adiga, diintaada iyo ku dhaqankeeda ku weydiinayaan, maxaa ka shaqaysay ku weydiinayaan. intaas oo dhan calaa kulli xaal riyada xun lama sheego, riyada wanaagsan aa la sheegaa. riyada wanaagsan marka haddaad tahay qof wanaagsan, riyo wanaagsan cid kasta looma sheego. culummadu waxay dhaheen marka laga qaato suuratu yuusuf waxaa lagu soo xadidaa riyo markaad sheegaysid ama aad dad ku sheegaysid, waxaad ku soo xadidaysaa laba kooxood. waalidiinta yuusuf, hadda waalidiinta hooyo waa dhimatay, waalidiinta markaan leeyahay eedada waa waalid, laakiin waalidka kugu xigo oo kaa naxaya dheheen culummada. waa eedada ilmo kale dhashay, ilmo kale dhashay, ilmaha kale ee dhashay midaan iyada dhalin markuu u yimaado eedda u tahay oo riyadaan u sheego, aamin ma aha. idan marka waxaad u sheegaysaa qofka 100% kaa naxayo waa labada waalid ay ku dhalay waay, waa koo oo ku qarsan kartaa riyada wanaagsan. qaybta labaad aad u sheegayso culummada waxay dhaheen
وعلماء أما إمامة خاصة كوة يقانا تفسير الرؤية ريوين كسيد الله فسيره يقعد كو قرصانيسا أمانها سيكو شرحان intaasi waa riyada marka nebi yuusuf aabihiis ugu qarsaday waxaan ka soo hadalnay waalidka ilmaha cilaaqa fiican inay ka dhexayso suuradda laga faa'iidaysanayaa haddii ilmaha iyo adiga cilaaqa fiican idinka dhexaynin mushkilo waa markaas oo xal u baahan maxaa dhacay wax walba ay kugu qarsan lahaayeen adiga kuguma qarsanayaan asxaabteeda ku qarsanayaan qisooyinku waa badan yihiin laakiin wiil waxaa jiray oo diinta ka baxay oo Soomaali ah markii dambana frustrated uu noqday wiilkaas asal ahaan wuxuu ahaa qaari xaafid quraan macallin dugsi halkan ka dhacday qisada markii dambana diinta uu ka baxay ala kulli xaal sheekadu way dheer tahay uu dambeyntii maalin waxa ilaahay tusiyay habeen kooda isagoo drag raadsanayo sidar agteeda oo dadka sidii aan aqoon waa xaafad Soomaalida u badan tahay waqtigaas meelahaasi waxa joogo socdo oo kaliya wax drag gada ama shaqo ku leh markuu u tagay way ku soo boodeen dhulka la galeen inay lacag iyo wuxuu haystay ka qataan ay rabeen qofka garaacayo xabadkiisa fadhiyay gacantu iska qabtay sababtoo uu tabar darna draga aad u hayay gacanta markuu ka qabtay qofku wuxuu arkay wiilkaasi sanado ka hor inuu ahaa wiil isaga dugsiga u dhigi jiray quraanka bari jiray أنا إذا شاكنا قصة وحبيك ولا لسه أنتاس أنا هو قراعي حوله وجهي قبر برسن أو أنا قولي وصل الله توحي العق أنا وتن ويجا قاطع ويلكو يوصل عيونه أنا وحن وجدنا للرية بأركن لكن شاكذا وحن كاني هدي أو وح يكون عن أما ريها أركو أما وحون هدي يكون عن وحولان قنجري كونسلر أو قال أو للطليقة والسايكولوجيست علم النفس برتي مسلمين الإسلام كما داموا كبحي علماء ومتى جرين مركاسي خمرنا آذ وعبي جرين مركو حودا وحويسينا counseling how to drink in a professional way يعني بحواسيد خمرنا اللعبه ونقلب كاغا إيمانين اللي هو قال هذا سيقول قالوا على كل حال وصوى إسلام الحمد لله مركو وصوى إسلامي كدو أنا إيمت سوى تلاوي دي سنايو markaasuu iga sheekeynaya shooqooyinkan badan oo ku dhacay alxamdulillah ilaahay hanuunka u ziyaadiyo marka wuxuu iga sheekeynayay waxaan u tegayay ninkaasi oo weli lacag iga qaato wuxuu waxaan ku imid adiga adoon lacag iga qaadanayn marka counseling aan siinay oo ah religious and spiritual counseling talooyin ruuxi ah iimaani ah aan siinayay maalin kasta markuu ii yimaado marka wuxuu yidhi 150 iga qaadan jiray halkii saac wuxuuna bari jiray sida khamrada loo yareeyo ما خبرت إنه جوجي وحده شيخ مسلم كان أو إيمانه يا سيد أديك أو كل واحد يبري ساسي سيد إلهي الله وحرمه وحنا إجا ما قادنا سبحان الدين تاسعة إلهي سبحانه وتعالى القرآن بحوله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما ركتي ولا شكورا إلهي سبحانه وتعالى قفكم وشقينا إلهي وشقي وعدنا أمان يحاول وكرب مره مرك رسولك وصوش نصاص هاين دعاء واسداس وقدام بنتي suuraddan waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya labadaas aayadood haddaan soo ururiyo walaalaha aamin inaan laga noqon karin walaalo fiicna way jiraan walaalo xunxunna way jiraan laakiin marka shayga xasadka u yimaado ma kala sooco walaal iyo idaan walaalo ahayn xasadkana waxaa suuradda inoo sheegtay in uu ka imaanayo shaydaanka nebi yacquub wuxuu ku dadaalay inuusan halaynin cilaaqada u dhaxaysa yuusuf iyo walaalihiisa mar wuxuu u sheegay inay khatar ku noqon karaan oo hagardaamay u samayn karaan sababta ah yuusuf riyada aan arkay wuxuu dhahay yuusufow riyad muujinaysa waaye in ilaahay maqaam weyn uu ku gaarsiin doono 12kaas wiil oo walaalka uu ku jiro iyo aabbaha iyo hooyada adaan ku hoos imaanaynaa marka bini aadanka waa xasad badan yahay bini aadanka wax yuunaas la dhahay ayaa jiro il uu ku fiirinayaa bini aadanka xasadkaas ku beera xasadkaasna shaydaana ku beera walaalaha marka walaalihiisa in uu xumaan u arko ka leexiyo wuxuu dhahay shaydaanka wuxuu sabab u noqonayaa
in walaalahaaga quluubtooda uu gasho iyo maskaxdooda iyo caqligooda inuu ku abuuro inay ku xasdaan. markay ku xasdaan kadibna inay hagardaamo ay ku sameeyaan ee qorsho xun ay ka shaqeeyaan. marka weli ma dhicin taas, laakiin wuxuu u diyaarinaya wiilkiisa. marka waa aabbo yaqaana riyooyinka sida loo fasiro, waa aabbo waaye arag ah, waa macalin fiican. lidaalika culimmada waxay yidhaahdeen qofka waaye aragga ah oo macalinka fiican ah meel fog wax ka fiiriyaa. markuu talada bixinayo talo wuxuu qiyaasayaa waxa dhici karo uu adoorsayaa. marka waxa dhici karo lagu sheego in qorshayaal xunxun ay samayn karaan, in iyaga uu ka ilaaliyay in xumaan uu u qaado. wuxuu dhahay iyaga ma xuma, laakiin shaydaan ayaa meesha soo gelayo. marka duruusana la baraya oo ah haddaad madaxweyne noqoto, haddaad ra-iisul wasaare noqoto, haddaad noqoto madax noocu doona ha ahaado, ama haddaad wax uu noqoto business haddaa yeelato, haddii oo dukaan aad yeelato, cid maaragtay shaydaanka inuu dhex galo oo xaasidiin ah ayaa soo baxay. shaqadooda ay noqonayso inay hagardaamo kugu sameeyaan. xitaa waxaa laga yaabaa qoyska gudihiisa inay ka soo baxaan walaalo ku xasdayo. marka duruustaasaa laga qaadanaya. marka haddaad wax noqotoba waxay doonto wax yar xitaa ha noqoto, dadaan kuu ogolayn inaad wax noqoto. marka tan waaba wax weyn oo soo socda hadday kaa dareemaan waayo. micnaheedu waxaa waaye hadalkan ama macluumaadkan oo aad ii sheegtay macluumaad qarsoon ha ahaado. halkan waxaa kaloo laga fahmayaa sirta in la qariyo. wuxuu leeyahay waxbaad aragtay, ilaahay adeeg keliya og, anaa igu qarsatay intaa ku joogto. maxaa dhacay? lidaalika culimadu waxay dhahaan haddii macluumaad oo muhiima aad hayso oo noloshaada horumarin ku sameynayo sida yuusuf oo kale, macluumaadkaas inaad qariso waa. maxaa dhacay? dadka xaasidka ah macluumaadkaasi hadday helaan way ku burburinayaan. ilaan xaasid macnaheedu waxaa waaye laba nooc oo xasid ayaa jira. xaasid waxa aad haysato ilaahay uu ku siiyey wuxuu rabaa inay kaa tagto, cidday doonta ha aado. kuuma ogola wax wanaagsan inaad haysato. waa xaasid. xaasid ka sii darankaas waxa waaye waxa aad haysato gacantaada inuu ka soo baxo oo asiga gacantiisa ay galaan uu jecel yahay. marka waa laba xaasid oo labada wax kuuma ogola, laakiin mid wuxuu rabaa in lagaa soo qaado oo asiga markaasi uu qaado. lidaalika diinta rasuulka alai slam wuxuu yihi laa xasada ila ithnatayn. jamashay af soomaaliya dhahan qolada qaarkooda, kan culama qaarkood waxay leeyihin xasadka la ogol yahay. xasadnimo lama ogola, waa xaaraam. lidaalika rasuulka wuxuu alai salaam xaasidka sida dabka qoryaha marka lagu rido ay u cuntoo kale, xasadkana xasanaadkiisa. macnaa qofka xaasidka ah xasadkaasi ku jiraa wuxuu cunayaa xasanaadkiisa. waa khatar. lidaalika waxaa la yidhahdaa xaasid laa yaflax, ma liibaano adduun, aakhirana ma liibaano. sababto aakhira xasanaadna ma haysto. qofku markuu ku xasdo xasadkaasi ku jiro ayaa wuxuu cunayaa xasanaadkiisa, salaadiisa, soonkiisa, waxaad samayso dhan oo khayr ah wuu tegayaa. lidaalika waa cudurrada ugu khatarsan oo insaanka ku dhaca weli mu'minka ah. qofka mu'minka xaasid ma noqdo. almu'min laa yaxsud. lidaalika xadiis ayaa jira rasuulka alayhi salaam uu ka hadlayo oo uu dhahaya almuslim akhu lmuslim. xadiiskaasi markuu cabaar socdo wuxuu dhahayaa ma xasdo qofka mu'minka ah walaalkiisa, mana hoojiyo, laa yakdulhu. kunuu cibaadallaahi ikhwaana. walaalka haddaa aragto inuu ilaahay siiyey wax uu ku dheeryahay alxamdulilah dheh, maa shaa allah dheh. maa shaa allah markaad dhahdo ilaahay asagana uu u barakeynayaa, adna wax la mid ah uu ku siinayaa. maxaa u xasdaysaa? ilaahay subxana wataala am hum yaqsimuuna raxmat rabbi. ilaahay subxaana wa tacaala su-aal cajiib badan waaye. dadka ilaahay isagaa qaybiyey nicmooyinka, qofkan isaga isama siin. marka adi waxaa lagaa rabaa oo kale nicmadaas ilaahay inaad ka doonato, qofka ilaahay uu siiyeyna aad dhahdo maa shaa allah. marka intaasoo duruusa laga qaadanaya. marka wuxuu yidhi riyada intaas keliya ma ahan. wakadalika sidoo kale ayaddana kusoo gabagabaynaynaa waqtigii oo la gaaray darteeda. wakadalika yajtabiika
sida riyadaasi aad u aragtay in annagoo dhan adigaan ku hoos imaanayno ayaa sidoo kale yajtabiika rabbuka rabbigaa uu ku doortay ama uu ku dooranaya inaad noqoto nebi. halkaan culamadu waxay dhaheen waxaa laga soo dariishaday in nebi yuusuf uu rasuul u ahaa ayaa halkaan laga faa'iidayaa. markaasaa wuxuu yidhi wakadalika yajtabiika, sidoo kale ilaahay subxana wataala wuu ku dooranayaa ama wuu ku doortay ama wuu ku dooran doonaa. wuxuu ku dooran doonaa inaad nebi noqoto, rabbuka rabbigaa ayaa ku dooran doona. wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid, wuxuu ku bari doonaa sida loo fasiro axaadiidta. axaadiista halkaan culammada waxay dhaheen tacbiiru ru'ya waayo, riyooyinka sida loo cabiro ayuu ku bari doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku baraya. marka nebi yuusuf wuxuu noqon doonaa mufasir ru'ya. culamada qaarkoodna waxay dhaheen maya, axdaasta oo dhan uu fasiri karaa, riyo keliya maahan. dhacdooyinka marka loo sheego wuxuu samayn karaa nebi yuusuf analysis ayuu samayn karaa, ama riyooyinka la arkay ayaa wuxuu ku sameynayaa analysis, taxliil cilmi ah oo uu kala soo baxaya maxaa loo baahan yahay in la qabto ama in la sameeyo oo laga faa'iidaysanayaa riyadaasi la arkay. waadna arki doontaan boqorku markuu riyo arko wuxuu kala soo baxaya. ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeya wayutimu nicmatahu calayka, ilaahay wuxuu kuu dhammaystirayaa nicmadiisa. halkan culammada waxay dhaheen waxaa loola jeedaa annubuwa, nebinimada oo ilaahay uu ku siin doono, saas ayaa loola jeedaa. oo wacalaa aali yacquuba, oo reer yacquub adiga siduu nicmada uu kugu dhammaystira, reer aali yacquub nicmadu u dhammaystirayaa oo ah isagaa nebinimo loo doortay. nebi yacquub waa nebi, kamaa atamaha calaa abawayka, labadaada aabe ama waalid, lidaalika awowiyaasha waa waalid. halkanaa laga qaadanayaa min qabl labadii waalid oo ah ibraahim. soka ahaan waxaa soo sokeeyay isxaaq, laakiin ibraahim ayaa lasoo hormariya la yidhi. ibraahim waa isxaaq, labadu waa awowe, laakiin waxaa idin soo hormariyay isxaaq waaye awowaha dhala yacquub, markaas ibraahim lagu xejiyo. laakiin ibraahim waxaa loo soo hormariyay dheheen culummada tashriifan, labadooda ama ikraaman, labadooda waxaa karaamo badan ibraahim, ilaa culummada qaarkood ay ku magacaabeen abulambiyaa. marka ibraahim taariikhdiisi iyo waa ka sheekan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. ibraahim marka ayaa lasoo hormariyey, makaanadiisa loo soo hormariyay uu leeyahay, iyo isxaaq. labadooda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin aabbayaal. ina rabbaka caliimun xakiim. halkan aayaddan qaybta dambe wax weyn ayaa ku jiro, meeshana kusoo gabagabaan. ina rabbaka rabbiga caliimun waa cilmo badane, manaa wax walbuu ogyahay. wuxuu ogyahay ilaahay ruuxa munaasabka ah in risaalo ama nebi laga dhigo iyo ruuxa aan ahayn. xakiimun micnaheed waxa waaye ilaahay waa xikmad badane oo wax walba meesha la dhigo oo u suuban ayuu yaqaanaa. iyadoo qaba ilaahay waa xakiim, ilaahay subxaana wa tacaala shay walba meesha ku habboon, waqtiga ku habboon, xaaladda ku habboon iyo cidda ku habboon uu ilaahay subxaana wa tacaala u garanaa. anaga ma garan karno inuu ilaahay nagu haga ma ahayn. halkan marka waxaa laga fahmayaa in oo nebi yacquub uu u sheegayo wiilkiisa ilaahay subxaana wa tacaala inuu doortay, una doortay jaga weyn oo ah risaalo inuu u dhiibi doono, isla markaasna ambiyadii oo tafiirtii ibraahim in lagu daray oo nicmo dhammaystiran la siiyey. waxaasoo nicmo oo dhan hadday ogaadaan way ku xasdayaan. intaas waa marka saddexdaas aayadooda ku joojinaynaa maadaama nusaacan ugu talagalnay. marka qaarkood haddaan nusaac dhaafno waa raalli ahaanaysaan. waxaan rabnaa inaan tafatirno, inaan dhuuxno, inaan hoos u fahno macaanida aayadaha iyo waxa ku qarsoon iyo xikmadaha ka buuxa iyo asraarta ka buuxda. ilaahna waafajiyo. ilaahay subxaana wa tacaala khayr oo dhan waxaan idin rajaynaa ilaahay inuu idin waafajiyo meel kasta aad joogtaan. ilaahay subxaana wa tacaala cudurkaasi iyo viruskaasi ilaahaan ka magan galnay, ilaahu adaan kaa magan galnay. ilaahu na xifdi annaga, caruurteenna, qoysaskeenna, qaraabadeenna. ilaahu subxaana wa tacaala xaqana tusi, kuwii raaca naga yeel. ilaahu dulmiga iyo baadilka iyo xasadka na tusi, kuwii ka leexda naga yeel.
ilaahu subxaana wa tacaala qur'aanka markay fahmaan kuwii ku dhaqma naga yaal. waxaa dadku khayr badanaa la yidhi qofka 1 barta diinta, 2 ku dhaqma, 3 faafiya fahma hoos u fahma, 3 iyo 4 faafiya khayrkaas. kuwaas ilaah naga dhigo. aquulu qawli hada wa astaghfiru lii wa lakum. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.